qarax xooggan ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan wadada mashquulka badan ee Maka al-Mukarrama sida ay dad goobjoogayaal u sheegeen idaacadda Shabeelle. qaraxaasi ayaa waxa uu ka dhacay afaafka hore ee maqaaxida lagu magacaabo Filsan oo ku taala agagaarka Hotel Wehliye ee isgoyska sayidka ee magaalada Muqdisho. gaariga qarxay ayaa la dhigay afaafka hore ee maqaaxidaasi Filsan waxaana laga soo buuxiyay walxaha qaraxaasi ayaa marka uu dhacay waxa meesha ku sugnaa dad aad u fara badan waxaana la soo sheegayaa in ay soo gaadhay dadkaasi waxyeelo u badnayd dhaawac. mid ka mid ah dadkii ka agdhawaa goobtaasi oo la hadlay Shabeelle ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen. alxamdulillaah rabbil caalamiin anigu magacaygu waa Yaasiin Faytiin kulay waad garanaysan saxaafadahan waxaan ka mid ahay bahda saxaafadda waxaan ka qadaynay maqaaxida xilligaas ka bacdi banaankan fariisanay isla markaana qarax ka bacdi baan la kulanay qaraxuna runtii qof walba waa naxay shoog baa ku dhacay qof walba dhulku ku dhacay in yar ka bacdi markii dadkii caafimaadka qabay sidoo kale aan soo baraarugnay ayaan waxaan aragnay ilaa aniga asxaabtayda kulay laba kamid waa dhinteen shan kale oo dhimashana waan arkay dhaawac ma sheegi karo ambalaasta markiiba timid oo daldalasay runtiina waxay ahayd dhacdo dee aad u naxdin badan bay ahayd runtii anigu markaa maqaaxi restaurant ay ahayd maqaaxida waxaa la dhihi jiray Bilsa restaurant ma garanayo dee kulli meel shacab bay ahayd waa laga qadaynayay si fiican bay u kala socotay. dhimashada aniga asxaabtayda laba kamid waa dhimatay shan kamidna waan arkay dhimasho ahaan gacantayda ayaan dadkii wax ka qaaday baan kamid ahaa alxamdulillaah dhaawac ma garan karo runtii ambalaasta daldalasay tiraahantay yihiin. markii uu qaraxaasi dhacay waxaa goobta soo gaaray gawaarida gargaarka degdega ah waxayna halkaasi ka qaadeen dad qabay dhaawacyo kala duwan. wadooyinka soo gala halka uu qaraxu ka dhacay ayaa sidoo kale la xiray waxaana joogsaday isku socodkii gaadiidka iyo dadweynaha iyadoo goobta ay markaasi soo gaareen ciidamo dheeraada oo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya. maalmihii ugu dambeeyay waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay qaraxyo kala duwan oo qaarkood lagu xireeyay gawaarida markaasi yaryarka ah.